waxaa 6 bilood jirsaday adeega Nageeye oo adeega qaab online ah shacabka ku dhaqana dalkan Turkiga ay balamahooda iyo waliba adeegyada kale ee safaaradda ay bixiso qaab online ah uga dhameysan karaan iyadoona qaar ka mid ah shacabka adeegaasi ka faa'iideystay aad u soo dhaweeyay muddadii uu shaqeynayay. adeega Nageeye aad buu fiicay safaaraddu soo kordhisay aad baan ugu faraxsanahay inaan Soomaalidu ay wax fiican keento waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay thank you adigana aad baan kugu mahadcelinayaa ka waran balamahaaga adeega online ka ahaan adigu xaafadda jooga soo qabsataa aad bay la igu soo fududeeyaa aad baan ugu yimaadaa talabaad adeeg Nageeye waxa horta ku dhibaato weyn iyo weyn aan ku qabnay ku markay corona bilowday inta virus corona dhibaatadaas maxay ahayd baasabooryaashii adduunka wada xirmeen iyo safaarooyin badan jirto oo adduunka wada xirmeen xataa Muqdisho dhexdeeda walaakin Ankara ma sha Allah ilaahay khayr asi safiirka jaamac soo umaaday program badan oo ka bedelay adeeg Nageeye oo keenay ilaa guriga online ku dhibtid ina baasaboorka guriga lagu keeno waligeed ma ka dhicin la adduunka dhan safaarada Soomaaliya meel kasta ku taal ma ka dhicin Ankara ka dhacday taas maxaa ugu madcelinaa shaqaalaha ka shaqeeyo oo weyn yahay walaalkeena marna waalidno safiir jaamac adeega Nageeye waa adeega aad ugu riyaaqnay aan aad ugu faraxsanahay muddana aan sugeynay waa adeeg aan online wax walba aan ku dhameysan karno maadaama uu jiro corona iyo jawiga cimilada oo Ankara mar walba isbedesho marna waa qabow marna baraf daayo aadaan oo mahadcelinayaa safaaradda Soomaaliya adeeg aan muddo badan aan sugeynay waaye oo noo shaqeeyay wax walba nooga fududeyay adeeg Nageeye waan soo dhaweynaa haddaan nahay mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool Ankara alxamdulillah si fiican ayuu qaabkii uga faa'iideysatay adiga wallahi qaab fiican ayaan uga faa'iideysanay hadii aniga dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo muxuu ahaa gurigan la degan wax kulli dhib ay kamaana arag safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ambassador Jaamac Aydiid ayaa waxa uu ii sharxay marxaladihii uu soo maray adeega Nageeye adeegan ujeedada aanu ka lahayn saddex ujeedo ahaayeen number 1 dadweynaha Soomaaliyeed ee Turkiga degan waxay kala degan yihiin magaalooyin dhowr iyo 30 ka badan oo kala fog oo dacalada wadanka ah qaarkood aad u fog yihiin Ankara ugu tiro badan Istanbul baa ku xigta magaalooyin kale badanna gaar ahaan ardaydu ku fiirsan yihiin dadkaasi inay Ankara u soo doontaan adeegyo warqad yar oo la sameeyo dhalasho ama warqad iska caa'ilad iyo waxa loo sameeyo dhibaato ku ahayd waa inay bas soo raacaan ama tareen soo raacaan magaalada habeen u hoydaan laga yaabo inay warqadihii maalin ugu dhamaan waayaan warqadu waxay sii maraan wasaaradda arrimaha dibadda iyo meelo kale sii maraan oo la sii tasdiiqiya adeegan horta ujeedada uu koowaad aan u sameynay wuxuu ahaa qof kasta adeega uu soo dalbaday inuu gurigiisa ka soo dalbado magaaladu joogo adreeska uu degan yahayna loogu diro qodobka labaadna wuxuu ahaa waliba ta qodobka aan ku noqday xataa dadka Ankara degan waxay u badan yihiin reero iyo caa'ilado dumar caruuro haya dumarkaas ragii intay halkan dejiyeen bay ka tageen qaarkoodna qurbahay ku noqdeen qaarkoodna Soomaaliya iyo shaqadii ay ka hayeen ama siyaasad ama ganacsi bay ku noqdeen dumarkii marka macruuftii bay haysaa mise safaaradii bay warqad uga sameeysaa dadka aad iyo aad noogu soo mahadceliyay runtii oo uga aad maaragtay nala soo hadla oo codad noo soo duuba dumarka caayilaadka ka mid ah marka xaafadii doonto Ankara ka deganaato iyo magaalo kaleba warqadii gurigeeda lagu geeyay qodobkaasi waa qodob kale aan u sameeyay waa COVID-19 kan adduunka ku cusub isagana waa tii la yiriyay la isu tagin yaan la isu soconin isaguna baahidii buu si laba laabay qodobka saddexaadna waxa weeye safaaraddeena waad aragtay waa guriga ku jirta aan deer weyn lahayn dadkii marka gudaha ay yimaadaan buuq iyo maaragtay iyo sidii xataa adeegii loogu adeegaya iska dhib ahaa marka nooca waxa gaalada af Ingiriisiga lagu yiraahdo efficiency-ga shaqadii inay noqoto shaqo tayo leh ayaa ugu kalifay oo hadda wixii halkan warqadaha lagu sameeyay warqadaha lumaya dadkii baa qaar ka daahasa dadkii baa qaarkood soo kala hormarayaan isku xiriiriyaan meeshii marka taasina awoodda barka bahalkii waa hirgalay runtii muhiimaduna waxa weeye safaaraddu waxay qabataa qofka warqadaha markuu soo diro waa loo daabacayaa isaguna bangigu adeega khadmada yar ee laga rabo Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Ankara.